halkan waa barta ciyaaraha. fadlan ha ilaawin inaad subscribe tiraahdo Si aan halkan ugu wada xiriirno kuna sii darso gambaleelka furo si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barta ciyaaraha Sports News. aan commenti. kulanti waxaan oo wanaagsan asxaabtaynu jecelnahay ku soo dhawaada falanqaynta kulamada laga ciyaari doono horyaalada qaaradda Yurub. berito ilaa iyo habeen dambe waxaa jiri doona kulamo aad iyo aad u xiiso badan aynu ku horeyno kulamada laga ciyaari doono horyaalka Backlash Premier League. Haddaba haddii aanu ku bilaabno kulanka ugu soo horeeya wuxuu dhexmari doonaa kooxaha Fulham iyo Manchester United. Kulanka xigana wuxuu dhexmari doonaa kooxaha Crystal Palace iyo West Ham United, halka kulanka kale uu dhexmari doono Huddersfield Town iyo Arsenal. Liverpool iyo Bournemouth way ishayaan. Southampton iyo Cardiff sidoo kale. Watford iyo Everton is qaabili doonaan. Brighton and Hove Albion iyo Burnley way is arki doonaan. aynu ku hormarno falanqaynta kulanka adag ee dhexmari doona kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo kooxda Fulham iyo Manchester United ciyaartooda imis sac ay soo galaysaa. Waxay soo gali doontaa abaaro qadar dhan 9 saac iyo bar galabnimo xilliga geeska Afrika. aadiya waxayna ciyaartaas ka dhici doontaa garoonka Craven Cottage ee magaalada London ka oo ku ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Fulham. kooxda Fulham ayaa ku jirta qaab ciyaareed aad iyo aad u liita tan iyo kusoo laabashadeedii horyaalka Premier League, halka Manchester United ay ku jirto waayo wacan iyadoo haddii horyaalka Premier League xilligii uu Solskjaer qabtay laga bilaabi lahaa ahaan lahaa hogaamiyaasha horyaalka Premier League. ninka wax badan oo ka qabtay kooxda aad iyo aad wala macaan horumar sameeyay waaye. waxaaba loo saadaalinayaa inuu Ferguson cusub uu yahayba, isagoo la rajeynayo inuu top 4 ku dhameysto xilli ciyaareedkan si kooxdiisa ay ugu soo baxdo xilli ciyaareedka dambe tartanka UEFA Champions League. Manchester United ayaa wax guul daraa la kulmin tan iyo markii uu xilka tababarnimo qabtay macalinka reer Norway Ole Gunnar Solskjaer, waxaana wacdaro ka dhigaya xidigaha kale ah Paul Pogba oo noqday caawiye dhameystiran, halka Rashford uu yahay dhaliyaha ugu sareeya Manchester United ee koos ciyaaraya Ole Gunnar Solskjaer. kulanka xiga wuxuu dhexmari doonaa kooxaha Huddersfield Town iyo Arsenal. kooxda kubadda cagta Arsenal oo ay dhagaheeda ka sii qaylinayso guuldaridii xanuunka badneyd ee ka soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City toddobaadkii aynu soo gudubnay ayaa waxay la ciyaari doontaa kooxda qabtay guuldarada weyn ee 5 gool lagu soo xaaqay Higuain iyo Hazard ay soo daldaleen ee Huddersfield Town. kulan ciyaareed ka tirsan horyaalka EPL-ka waxa uu soo gali doonaa kulankaas 12 maqrimo xilliga magaalada Muqdisho. Arsenal oo kaalinta lixaad ku jirta ayaana rajeynaysa inay sarakac soo sameyso iyada oo in badan cadaadis saari doonta kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Chelsea oo ku hardamaya kaalinta afaraad si ay u xaqiijiyaan inay ka mid noqdaan ka qaybgalayaasha tartanka UEFA Champions League xilli ciyaareedka dambe. kulanka kalena haddaan sheegno wuxuu sii dhexmari doonaa kooxaha Liverpool iyo FC Bournemouth. kooxda kubadda cagta ee Reds oo tan iyo bishii December ahaa hogaamiyaasha horyaalka EPL-ka ayaa markaan talafaray ka baxday horyaalkiina waxaa la soo daristay daris wanaagna soo noqotay ku dhibca ah farqiga goolashana kaga sareysa kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Liverpool ayaa December horyaalku waxa ay ku haysay ku dhawaad 7 dhibcood, balse haatan kooxihii waa isku dhibco. Liverpoolna hoos u dhacay sameysay taa oo in badan saadaasho ay siinayeen kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay mar kale dib u hanan karto horyaalka EPL-ka oo ay xilli ciyaareedkii hore ku guuleystay. Bournemouth oo ognahay in kooxdii Mauricio Sarri uu watay sigaarkii laqsiyeen odiga sigaarka toddobaadkii ka horeeyana wacdaro ayay ku dhigeen 4 gool iyo waxba ayay ku xaaqeen. Liverpoolna berito waa loo cabsanayaa haddaysan isfuranna horyaalkii ayaaba gabaabsi noqon doona. horyaalkii ayaa u guuri doona dhan kale. horyaalkii ayaa noqon doona horyaal aan Liverpool loo sheegi doonin ayadoo ku dhawaad 30 sano aan wax horyaal qaadin kooxda Reds, balse keedii ugu dhawaana hadda uu qalqal iyo cabsi soo wajahayo. Liverpool guul ay gaarto waxay kaga dhigdaa doontaa in ay hogaanka horyaalka Premier League si ku meel gaar u qabato tan iyo kulanka ay Manchester City la ciyaari doonto kooxda Chelsea, markaa oo rajeynayso in Chelsea ay taako dhigto kooxda City.
intaa haddii aanu kaga gubno horyaalka EPL-ka dalka Ingiriiska, waxaa xigi doona horyaalka Serie A dalka Talyaaniga, waxaana ka jiri doona kulamo dhowr ah. waxaa iswajihi doona horyaalka dalka Talyaaniga, kooxda Juventus ma ciyaari doonto si lamid ah AC Milan, ayadana ma ciyaari doonto, balse waxaa kulanka ugu soo horeeya dhexmari doona kooxaha Fiorentina iyo Napoli oo 2 saac habeenimo xilliga Geeska Afrika iswajihi doona, halka kooxda kubadda cagta Inter Milan ay booqan doonto kooxda Parma waana 4 saac bar xilliga Geeska Afrika. halka Spain oo jiro waa kulanka dhiig badan inuu ku daatay sugayo, waa kulanka kulamada, waa kulanka ugu adag, waa kulan Madrid derby ka dhexmari doona kooxaha Atletico Madrid iyo Real Madrid oo isku haysta booska labaad ee horyaalka La Liga dalka Isbaanishka, ka oo hoggaanka u hayso kooxda kubadda cagta ee Barcelona. kulanka ugu soo horeeyay wuxuu 9 saac galabnimo dhexmari doona xilliga Geeska Afrika, kooxaha Getafe iyo Celta Vigo, halka Atletico Madrid ee garoonkeeda ku qaabili doonto kooxda Real Madrid 12 iyo 15 daqiiqo xilliga Geeska Afrika waa maqribkii, halka Espanyol iyo Rayo Vallecano 2 saac bar ay soo gali doonaan. Girona iyo kooxda Huesca ayaa waxa ay wada ciyaari doonaan 4 saac 45 daqiiqo xilliga Geeska Afrika. kulanka ugu adag horyaalka Spain wuxuu dhexmari doonaa kooxaha deriska, kooxda Atletico Madrid iyo kooxda kubadda cagta Real Madrid, kuwa oo ku dagaalami doona hardan culusna uu dhexmari doono midii noqon lahayd kooxda Barcelona kula tartarta horyaalka La Liga Standard oo maraya meel xasaasi ah. kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa hoggaanka horyaalka ah, halka Atletico Madrid ay ku jirto kaalinta labaad. Real ayaa 3aad fadhisa oo kaalinta labaadna lagu hayo 2 dhibcood oo qura. haddii Briti ay guul kaartana waxa ay kaga dhignaa doontaa inay kaalinta labaad 1 dhibcood oo nadiif ah ay la fadhiisan doonto. Barca ayaan ciyaari doonin iyadoo Axadda wajihi doonta kooxda Atletico Bilbao. intaa haddii aan kaga gudubno falanqeynta kulamadii la ciyaaray, aan 1 iyo 2 wararkii ugu dambeeyay 24 saac ee aynu soo gudubnay laga soo calaamadeeyay kubadda cagta waxaa ka mid ahaa in la xaqiijiyay geeridii xidigii reer Argentine iyo kooxda Cardiff City Emiliano Sala, ka oo la helay meedkiisa. Sala oo 21 bishii January la asanaa ayaa ugu dambeyn waxaa la helay qaybo ka mid ah burburkii diyaaradii maalinimadii Arbacada ahayd, balse waxaa si buuxda loo helay meydkiisa, taa oo xaqiijisay in Sala uu ka tagay dunida. wararka kale waxaa ka mid ah in xidiga Lindelof uusan qayb ka ahayn kooxda kubadda cagta ee Manchester United, taa oo wajihi doonta Fulham, halka kabtanka Barcelona Lionel Messi uusan maanta ka qayb qaadan tababarka kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay isugu diyaarinaysay kulanka ay la ciyaari doonto kooxda Atletico Bilbao.